caawa idaacadda shidan marti noogu ah mida guurtida gobolka Sanaag Ciid Maxamuud Ismaaciil ka wareysano dhacda waayadan dambe ka soo noqonaysay gobolka iyo wararka guud ee gobolka yaala waxaan soo dhaweynayaa Ciid waxaan leeyahay Ciid soo dhawow marka ugu horeysa waxaan ku weydiinayaa inaad dhageystayaasha u sheegto qofka aad tahay iyo xilalka maaragtay odaynimo oo aad ka soo qabatay gobolka aad ku nooshahay soo dhawow marka la aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka ugu horeysa waxaan leeyahay Ramadaan Kariim intay maqlayso oo dhan oo asxaabta codka shida ku jirta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu waxaan ahay Ciid Maxamuud Ismaaciil maalintii waa Ciid bidaar baa la yiraahdaa qaargaabaha ku noolahay muddo fara badan 7 sanadood waa ku noolaa ninkii ugu horreeyay oo harti ah oo nabad raadinaya xayaastiraa ka soo lugeeyay waa la soo diray waxaa la yahay iyo nabad miday doonayaan nimanka ay saaqo qaargaabaha haystaa oo soo weydii markaan qaargaabo soo galayna waa la isugu keenay magaalada waa hubaysan tahay waa isu sheegay waxaan ninka ergeyga abaan ahay nabad baan u socdaa hal iyo nabad soo kale weydiinaa la yidhi arrintaas waxa dhacday jiray habeenkii baa meeshii joognay qaroortii baa la darista ka sheegay waxaa ay u socotay darista ka sheegay iyo markaa darista ka sheegay kabacdi 11 nin baa lagu daray oo erga ah ergadaas waxay ahayd 11 kaamil waxay ahaayeen nin warsageey dhalay iyo nin warsageey ka qaba waa lagu daray oo habeenyoodisa markaas waa nimankaa kaxayey xagga hagaagtooda loo dhexdaan isugu dhigay shirlabadeedkii qaargaabada isugu yimid markaasaa nabadda ka bilaabatay wixii ka dambeeyana waa la wada shilay waa marka qaargaabo lasoo geeyaayo shirarka lasoo geeyaayo qaargaabo aakhirkii la isugu imanayaa taasu taasay ahayd intii dambe aan qaargaabo joogayna guddiga aniguna waxaan ahaa guddiga nabadgelyada oo gobolka nabadda uga shaqeynayo shaqadaydu noocaasay ahayd oo nabadun baan ka shaqeeyaa waad mahadsan tahay waxa aan nagu maqaalo ah gobolka kan Sanaag deegaano xeebta ka xiga oo shidan ayaa iminka ilaa waqti ku dhow in muddo ah khilaaf iyo ishayni soo noqonaysay maalinba ha ka sii darto ilaa ay aakhirkii gacan ka hadal iyo naf ku baxda iyo hanti ku luntaba gaadhay maxaa arrinta tan salka ku haysaa ka oogan shidan iyo dabka kan huraya ee dami waayay muxuu salka ku hayaa waxay salka ku haysaa dabca weeye nimankaas waa damceen nimankaa la yidhaahdo meeshaa degan oo nimanka la yidhahdo habeenyoonis sideedaba waxay ku shaqeeyaan minduugsiday intaa raadinayaan hadda meeshii ay wax ka raadin karaan oo ay silaama halkaa jeex baa ka buurta oo minduugsi ah bay ka shaqeeyaan marka waxay silaameen meesha xeebta ah oo dheer oo khayraad badan lagu sheego waxay silaameen meesha dalduugsigaad ka helaysaan innagaana istigno nimanka garab salada helaytaris yihiin waxay silaameen halkaa jaaris baa idinka banaan wakti hore oo hadda 10 sano ay ka soo wareegtay mar bay halkaa aanu isu qabanay la yidhaahdo waqdaniyo afkeedaas magaceedaas oo afka hoosoo shidan ah waanu isku qabanay markaa waanu ka eriyey oo way ka tageen dabadeedna dib bay ugu soo noqdeen nimankaasu damac bay doonayaan gardaradana iyagaa iskale waana damac waana buldoon dadkuna si u kala dambeeyahay waa la yaqaanaa way soo jiideen way ka qaadan waayeen sidaasaa nimankaasu damac u doonayaan oo gul u doonayaan booba u doonayaan waan gartay waxaa la yidhi xabad joojin baa yeedhay odayaashii ku baxay ceerigaabo magaalada ceerigaabo la isugu yimi erga soconaysa isugu timi maxaa shaasheeyay nabadda oo ergadii iyo nabadayntii iyo wadahadalkii maxaa baajiyey oo ay ku baaqatay loo ballansanaa bishii 3aad ee hadda ayna dhaafisan iyo 10keedii halkaa xaggay wax ka qalloocdeen halkaa waxaa jirta halkaa garab-gurayeed baa jirta maamulka gobolka baa hogaaminayey mar kastaba maamulka gobolkaa hogaaminayey waa taanu markii hore laysku qortay u dhaamacdo balasaabka iyo guddiga maamulka gobolka aanu geynay meesha aanu geynay oo ay eegeen sida loo kala yaallo runtii markaa si fiican bay waraaqi qoreen wax yaaleen sidaasaa loo kala yaal dabkiina ha la qaado dabadeed nimankaa garab-gurayeed bay sameeyeen nimanka arrinta jaanjaaniyey
oo diiday inay garta qaadaan oo hadda nimanka kan habeenaya sunta u sheegi waayey waa maamulka gobolka ka jira oo balasaarku u madax yahay barnaamijka nimanka jaanjaamiyeyna kuwa markii dambena waxaan u malaynay in xagga sare oo dawladda oo kuwa hargeysa ay lugta ku haysaa marka xagga dawladda ayaa garab gorayeyna ka jirtaayo kiiska ama hala qaadi waayo ama hadalkeeda hala jaanjaamiyo hala dhegeysan waayo barnaamijku xaggaasuu lugta ku hayaayo uu ka soco waayey waxa weeye ugu dambayntii ayaantii dhaweyd waxaan ka hadlayaa bishii hadda ina dhaaftay ergada ay isugu timi magaalada Ceerigaabo mar kale aan ku celiye xabad joojintii yaa jebiyey meeshii ciidanka lagu kala qaaday maxaa dhacay maxaa nabadii shaasheeyay iyaga jebiyay oo meeshii xabad joojintii la sameeyay oo la yidhi halkaa kala jooga oo meesha ayaa waxba laga dhisin meeshii way ku noqdeen aan isku haynay oo waxbay ka dhiseen dhisid bay bilaabeen waanu u sheegnay meeshii waa laga tegaa baanu ku niri waxba waa laga qaban waayey mar labaad baanu u sheegnay mar saddexaad baanu u sheegnay mar afraad baanu u sheegnay markii waxba laga qaban waayey oo maamulkii meesha joogay la rabay inuu wax ka qabto oo waxba ka qaban waayey oo iyaga warka la gaarsiiyey markaasaa lagu soo duwo la dibiyey xagka la mariyey marka ay dhacday isku dhaca ciidamadii meesha lagu kala kaxayay ay dib isugu soo noqdeen oo qoladiinuna meesha yimaadeen wixii meesha laga dhisay ku dumiyeen waxaa nagu maqaalaa adiga oo sheeganaya taariikhda 30 sanadooda ilaa nabadayntii hore waxaad ka gashay jeel baa la geeyey la filayay yaad u xidhnayd arrinta tani marhumba ma jeel baad gashay bal arrinta wax nooga yara sheeg annaga iyo dadka ku dhageysanayaba ha jeel baa galay markii odayaashii nabadeynta u joogay meeshaa markii lagu soo duuyo meeshaasu la baabiyeen annaga waxaanu ku dadaalnay nabadeyntiina halkeedii ku socoto marka barnaamijkaasu marka xaggii habaryoolista iyo maamulkii oo wada socdan ay ka socon weynay oo waxaanu aragnay in la doonayo in raggii guurtida ahaayo xaggaa ka yimi in la xidho iyo suldaadkii axmed bashiir oo suldaadkii la xidho annagu oo markaa raggii magaalada oo aniga iyo boqorka iyo siciid faarax iyo ragga iyagaasi markaa meeshii baanu ku hadhnay sababay tahay markaa way baxeen oo si nimankaa loo badbaadiyo way baxeen annaguna magaaladii baanu ku hadhnay markii la ogaaday in toladii baxday guurtida ahayd oo 20 oday ahayd iyo suldaadkii annaguna aanu meeshii joognay waana la yeeday oo dabadeed waxaa la yidhi daalimiinta turwaanaa ku cala burburay oo waxaa la yidhi kuwa kan ha la xidhido taariikhdii hore iyo sidaanu magaalada uga muuganaynay iyo ninka boqorka ahoo dee nin boqor oo aan la xidhin ah iyo anigiioo taariikhda ahaa iyo ninkii caaqilka aada u shaqaynayay ah laba eegina waxayagiiba waa naa xidhay jeelkana geeyey biduun taran baa la yidhi hala kaxayo jeelka hala geeyo saasaanu jeelka ugu jiray waa 14 cashaanu jeelka ku jiray kasharun baa nala ka soo daaray waan soo gabagabayn doonaa waraysigeennii waxaan kugu soo xidhayaa arrinka noocaasa dadka mujtamaca ballaadhan iyo beelaha gobolka degaa sidee bay uga falceliyeen dareen noocee abaa dadku ka bixiyeen habdhaqanka nooca kana oo dadka aan bulshada dadkeedii mudnaayeen gacani qaban jirin ee bilimageydada ahaa taw jawrfalka nooca kan oo kale ah gobolku sidee uga falceliyey beelaha degan ee isyaqaana ee buuga cadooday beelaha gobolka degan hadday dhulbahato tahay hadday nimanka habar socdo tahay hadday dadka kale oo shacabka tahay aad baa looga cadhooday markii dambe meesha aanu ku xidhnay ciidan baa la dhigay oo dadka farabadhaantiisii baa la yaabay aad iyo aad baa looga cadhooday arrin la qaadan waayo bay noqotay hadeer waftigeeda markaanu soo baxnay dadkii gobolka joogay oo dhulbaate iyo habar jeclo iyo qolada dahaye iyo waxaasoo dhan inaanu shirqarsano baanu doonaynaa oo dhinaano gobolka kan sida kuwa noolaanayo sida kan kuwa shaqayn karo waxaa ku wada shaqayn kara deena gobolka kale gobolkiina waa la degaya waa la joogaaye nimankan iska cadarku taageerayo aan cidilo qabanayn waxayna tegeen laftaa laftigeedu hadda waa loo socotaa barnaamijkeedu waa loo socdaa hadda haddii laydin soo daayay suldaankii guud ee warsangelina waxaa naloo sheegayaa inuu gobolka soo galay dhinaciina dadaalka maxaa kaga jirtaan welina inaad garbaxdaan baa diyaar u tihiin miyaa
waxaanu diyaarinahay inaanu garbaxno inaanu wixii aanu ku dardaranahay nala qabto oo warshadeyna qabto wixii baakigeed ka daran yahayna la arko oo haddii laga diido aanu u mideyno annagu saasaanu suldaanka ku ballanay saasaanu ku wada shaqaynaynaa saasaanu isku afhiranay aad iyo aad baad si ciid u mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته